السلام عليكم دمان أصحاب تقاليقة. أنا قاعد ما يسمعوا وحال إذا صدوا يا فيديو كاسو كصابسن دوكيومنتياش أساسية oo ay tahay inuu haysto qofka rabo inuu apply gareeyo jaamacadda dalka Turkiga. Waxaan xalay hore u ballan qaaday inaan soo gali doono video live, laakiin internetka iga litaawis iyo anigu xaafadda banaankeeda joogo way ii suuragali weysay inaan live soo galo. Sidaa darteed ayaa idinku soo duubayaa si aan ballanka u burin aawadeed. Xaqiiqadii dokumentaas asaasiga af waa laga sheegi karaa, balse si aan u kala ilowin warqad aan ku qortay qofka badge-ka waxyaabaha ay tahay inuu haysto master degree-ga waxyaabaha ay tahay inuu haysto iyo PhD-ga qof kale inuu apply gareeyo waxyaabaha asaasiga oo ay tahay inuu haysto. Waxaa intaas dheer qofka badge-ka waxyaabaha uu la gaarka yahay ka masterka waxyaabaha uu la gaarka yahay iyo kan PhD-ga waxyaabaha uu la gaarka yahay iyo waxyaabaha ay guud ahaan wadaagaan waa idin la wadaagi doonaa. Marka guud ahaan markaad apply gareynayso jaamacadda waxaa laga maarmaan ah inaad kow aad buuxiso warqadda foomka jaamacadda inaad buuxiso laga maarmaan ah oo qasab ah oo aad ku buuxiso dhalashadaada taariikhdaada warbixinta uu ku siinayo warbixinaha uu ku siinayo kuwana waa waajib kuwana waa waxyaabaha aad ka tagi karto optional ah. kuwa waajibka ah iyo kuwa optionalka maxaad ku kala fahmaysaa marka foomka aad buuxinayso si ay qiimeyntaada kugu soo laabanin. haddii ay foomka dushiisa ay saaran tahay shaygaad buuxinayso hortiisa ay ku qoran tahay calaamad xidig ah macnaha waa kama tagi kartid waajib ayay kugu tahay inaad buuxiso. balse haddaysan saarnayn oo shay bis uu qoran lacala neema qoran xidiga horta kaga qoran maxay ka macno tahay magac inaad qorto waa waajib. marka magac uu kaliya ma shay kasto xidig ku qoran tahay waxa waajib inaad buuxiso. lambar 2 haddaysan ku qornayn waxba xidig hortiisa ah waa optional waa isaga tagi kartaa. foomka la buuxinaya marka waa 2 midna qaarkood waxay rabaan inaad gacanta ku buuxiso iskaan aad saarto oo aad kadib u dirto. kuwane system ay ayaga leeyihiin systemka ku buuxi kartaa jaamacadaha qaarne banaankan oo ku buuxi kartaa systemkoodan oo ku buuxi kartaa. lambar 2 waxaa laga maarmaan ah inaad baasaboorkaaga koobi aad u diyaariso. lambar 3 shahaadada ugu dambeeyay oo aad qaadatay haddaad dugsi sare tahay ama haddaad qof master dhameey tahay inaad shahaadada kugu dambeeyay aad haysato iyo transcriptigeeda oo ah mid dhibcaha ku qoran yihiin. marka ogsoona shahaadooyinkeena oo Soomaaliga laba waaye qaarkood waxay sameeyaan shahaadada dhibcahan ayada ku qoran tahay oo dhibcaha warqad kale oo gaar ah oo transcript la kuma qorno. saas darteed maxaa laga rabaa marka inaad shahaadada laba dhinac ugu koobiyeyso aad u dirto. waxaa kale oo muhiim markaasi letter of equivalence waxa la yahay baana soo qoran. letter of equivalence waxa waaye qofka haddii uu dugsi sare ka baxay laakiin dugsi sare rasmi uusan ka bixin oo laakiin waxbarashooyin kale oo koorsooyin la dhigto oo wax dugsi sare u qalmo kale oo sheegay in qofkan heerkiisa heer dugsi sare oo kale warqad noocaas oo kale ay jirto laakiin shahaado sax u haysanin ayadana booskaas wuu ku isticmaali karaa. waxaa kale oo qasab qofkii inuu haysto oo macnaha marka midaan oo ah letter of equivalence inta ku gudbin warqadan oo qofkan heerkiisa waxbarasho cadeynayso waajib ma aha. shahaado haysto taas loo baahan marka waa isaga tagaysaa badankoodna xidig soo ma saaraan haddaad haysato waa ayada optional way. certificate laga rabo oo luqadda Ingiriiska ayadana waajib ma ahan haddaad haysanin. iskoolaadka private-ka imtixaan ay leeyihiin imtixaankaas xilliga ku sheegay imtixaanka galaysa imtixaanka haddaad ku baasto jaamacadda bilaabaysa haddaadan ku baasinne waxay sameynayaan course waxay ku dirayaan preparatory work ku dirayaan ama preparatory course ku dirayaan ama afturka haddaad ku dhigi lahayd oo kaleeto oo jaamacadda dhow oo jaamacadda dawladda apply garaysanay hasirlik waxa la ku dirayaan oo ah diyaarin waa lagu soo diyaarinaya luqadda Ingiriiska dhiganaysa imtixaana ku baasaysa kadib aad luqadda ama waxa dhiganaysa bilaabaysa. waxaa kaloo muhiim ah photo inaad sawir u dirto baasaboorkaaga koobi ah sawir shahaado markaad dul maro oo shahaadada transcript dalada transcriptiga ula dirto haddii shahaadada ay transcriptiga isku dhex qoran yihiin inaad laba dhinac u koobiyeyso aad u dirto. hala lagaaga baahan yahay waa halahaas oo kaliya. waxaa marka inta dheer oo ay la gaar yihiin kuwa oo master degree-ga iyo PhD-ga ah waxaa laga rabaa inay diyaariyaan CV inay qoraan oo ka hadlaya background-kooda xilliyada wax dhameen waxay barteen meelaha ka soo shaqeeyeen. CV waa taqaaniin noloshaada hore inaad qofkii barto iyo meelaha ka soo shaqeysay waxaaga inuu CV qorta laga rabaa laakiin qofka badge-ka ah laga marabo inuu CV diyaariyo. waxaa kaloo laga rabaa inay qoraan dadka badge-ka iyo masterka dadka oo badge-ka hadhiin cafan dadka PhD iyo masterka diyaarna waxaa kaloo laga inay qoraan letter of intent waxa la hayo. letter of intent wax kale ma ahan waa warqadda niyadda waaye maxaa kuu kalif inaad kuliyadan master ka diyaariso ama PhD ka diyaariso
niyadaada ka leysaa marka waxaad noo qoraysaa kulliyadda aad apply garaynayso maamulkeeda aad si markaasi dadka soo apply gareeyay markay akhrinayaan ee u kala xushaan haddaad wax fiican qorto jaaniska lagugu dooro karo ayadana way badan tahay taasna labada way ka dhexaysaa midda CV-ga ah iyo midda oo letter of intent-ka ah dadka masterkana waa laga rabaa dadka PhD-gana waa laga rabaa waxaa intaas dheer oo laga rabaa PhD-ga bas inay soo qoraan reference letter warqad oo reference ah oo caddeyn ah inay soo qoraanna laga rabaa waxaa jira marka tusaale ahaan intaan PhD ka bixin laba qodob oo muhiim u ah ayaan kusoo gabagabeynayaa dadka PhD-ga diyaarinayo labadaas qodob oo ah qofka oo PhD-ga ah waxaa laga rabaa markuu apply garaynayo shahaadadiisii dugsiga sare yani shahaadada dugsiga sare shahaadada jaamacadda oo kaga baxay bachelorka iyo shahaadada masterka uu kaga baxay iyo labadooda transcriptigooda in uu diro ayaa la rabaa kaliya lama rabo inuu diro maxaa la yidhahdaa midda masterka uu ku diyaariyo oo baajka uu ka taga lama rabo inuu labada shahaadadii oo diraa laga rabaa baajkiisa iyo masterkiisa inuu diraa la rabaa waxaa kaleeto la rabaa transcriptskooda inuu diro macnaha dhibcii uu ku baastay labada shay macnaha oo maadooyinka uu qaatay dhibcooyinka uu ku baastay qoonta transcriptkaan dhahno ayagan inuu la diro ayaa la rabaa maxay noqonaya marka labadii shahaado iyo labada transcript inuu diro ayaa la rabaa qofka PhD-ga waxaa la rabaa inuu iska fiiriyo badanaa jaamacadaha private-ka ma aqbalan hadduusan thesis qofka diyaarinayn hadduusan buug diyaarinayn sidaas darteed eedan waxaa laga maarmaan ah markuu uu jaamacadda apply garaynayo tusaalahan kaleeto jaamacadaha qaar waxay leeyihiin ma aqbalayn hadduusan qofka ciwaan soo dirsanin marka apply garaynayso waxaa intaas dheer waxaa laga rabaa inaad horu dirto ciwaanka aad rabto inaad ka diyaariso buugga markaad apply garaynayso eedan waajib waa inaad dirto haddaadan dirin oo kaleeto jaamacadaha qaar way ku diidayaan oo kuma aqbalayaan maxaa la yidhahdaa kuma aqbalayaan inaad PhD diyaariso PhD markaad diyaarinayso waxaa qasab kula ah inaad mawduucaad buug ka qor leedna inaad ula tagto jaamacadda oo isla markaad apply garaynayso aad u dirto intaasaan kusoo gabagabeynayaa balse intaan ka bixin ka hor waxaan jeclaan lahaa inaan dadka qaar su-aalo isoo weydiiyey ama caadi isoo wacay inaan meeshaan ayagana jawaab ka siiyo jawaabtaas oo ah maxaa waxaan dan kaa soo gelayso waxba dan gaara igama soo gelayso waxaan video u duubaayo dadka aan u wargelinayo waxay tahay qofka inuu hooshiisa asaga qabsado wuxuu allaale wuxuu u baahan yahay asaga uu dhammaysto lacag yarna ay kaga baxdo oo ah ugu yaraan 750 ilaa 800 oo ticket kusoo jarto ilaa iyo lacagteer uu fiisa safaaradda uu soo siiyo iyo alaabta asaga uu soo gato markuu soo baxayo dalka dibadda soo aadayo intaasoo keliya qofka see u baxda darteed ayaan u sameynayaa waxba dana gaarka la iguma jirto dadkii soo weydiiyay ayagana horena ugu sheegay haddana meeshaanne waa ka qancinaya oo u sheegaya aad ugu mahadsantihiin daawashadiina asxaabtiina kale u sheergaraya si ay kaga faa'iidaystaan insha allah warbixintaan soo gudbiyey sida loo sameynayo baratikaan waa idin tusaya dad aan caawinay oo lacagaha aan ka shubnay oo kaleetana warqadaha lacagaha ay ku bixiyeen qaabka ay u ogtaa waa idin tusayaa si aad hawsha u dhammaystaan waxaa kaloo intaas dheer oo idinla wadaagi doonaa markii aniga aan Soomaaliya ka soo baxayay dokumentiyaasheeda qaabkaan u isticmaalay qaabkaan u soo xareystay anigoo cid i caawinayna dalka Turkiga aan ku imaaday lacagta qaabka ku bixiyay anigoo Soomaaliya joogo ayadan insha Allah waa idinla wadaagayaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaystaan sanadkan soo socdo jaamacadaha furmayna insha Allah intaad soo dhamaystaan aad idinka iskiin aad u imaadaan waa rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.